الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobkan maanta aan noo soo qaaday wuxuu yahay buug uu qoray Robert Kiyosaki ma doonaysaa inaad noqoto taajir buuggan magaciisu waxaa la yidhaahdaa Aabo Taajir Aabo Faqiir Rich Dad Poor Dad iyo buuggan aad iyo aad buu nolosheeda wax weyn ugu bedelay dhanka aragtida iyo maareynta dhaqaalaha buuggan haddii aan hore u galno waxaan soo qaadanaynaa oo isbarbar dhigaynaa laba aabbo aabbaha hore waa mid waxbarashadiisa ilaa heer ka gaaray inuu noqday ama dhakhtar weyn ama nin haysta PhD oo ah professor wuxuu qaadan jiray mishahar aad u fiican wuxuuna ku noolaa nolol wanaagsan markuu gaboobay waxba aan u dhaafin caruurtiisa oo faramaran laga yaabo inuu uga tagay deymo u baahan in geeridiisa kadib la bixiyo aabbaha kale wuxuu iskuulka kaga haray form 4 isla markaana wuxuu noqday dhaqaale caadi ah oo qaata mishahar isar dadka dhexdhexaadka lagu tiriyo markii uu gaboobayna wuxuu uga tagay caruurtiisa hanti fara badan iyo dhaxal ay noloshoodu ku maareeyaan labada aabbo waxay ka siman yihiin dhanka waxbarashada iyo wax akhriska in ay tahay wax muhiim ah oo loo baahan yahay in aad loogu fara adeego aabbo wuxuu xoogga saaray in waxbarashada uu heer sare ka gaaro halka midka kalena uu xoogga saaray inuu si caqli ah u maareeyo dhaqaalihiisa soo galaya taas ayaana u saamaxday canugii yaraa ee Robert Kiyosaki inuu noqdo hantiile weyn dhibaatada waxay ka jirtaa maareynta dhaqaalaha laguma barto iskuulka caadiga ah reerkana nasiib darro waxay carruurta ku abaabiyaan inuu noqdo sabool maahan inaysan jeclayn carruurtooda laakiin waxaa u geysay aqoon daro dhanka abuurka dhaqaalaha ana aqriyaan buugaagta noocan oo kale ah ee aad ka helayso macluumaad kuu saamaxayo inaad noqoto qof hanti leh ama jaamacado kaga soo baxdo xisaabaadka iyo aqoon dheeri ah waxaa loo baahan yahay oo keliya inaad fahanto laba arrin oo fudud waxayna kala yihiin waxa loogu yeero active passive labadaa shay inaad aad u fahanto ayaa muhiim ah tusaale ahaan waxaad maalgashanaysaa waxyaabo lacag kaa soo gelayso oo faa'iido ku korayso waxaad hantidaada ku iibsanaysaa tusaale ahaan aan waxba kaa soo gelaynin oo kaasi waxaa la yidhaahdaa passive haddii aan fiirino wax walba waxay noqon karaan wax kuu biiriya gaari raaxo ah oo qurux badan haddii aad iibsato oon waxba kuu soo kordhinaynin islamarkaanaad ku xaragooto magaalada lagaa arko ama waxaad iibsan kartaa mooto bajaaj kuu soo gelinaysa maalintii $10 ilaa $20 ama baabuur taksi ah oo aa ku soo geliya dhowr $100 bishiiba haddii aad guri iibsato oo weyn oo aad ku noolaad inka kale haddii aad iibsatid guri aad gelistay ijaar bil walba uu ku soo dhacayo taa waxaa la yidhaahdaa active tan kale ee gurigan lagu nool yahay ee aan waxba kaa soo gelinna waxaa la yidhaahdaa passive shaxda haddii aad fiiriso u qaato qofka 1500 isticmaalo kuwaasi waxay noqonayaan kuwa faqiirnimo ku dambeeya oo aan meeshooda waxba isbeddel ah ku imaanin waxay wax ku iibsanayaan waxyaabo ay doonayaan inay u muuqdaan dad hanti leh sida guri gaari raaxo baashaal iyo safaro aan macno lahayn ay ku galaan kuwa kale ee taajiriinta ah uu Robert Kiyosaki noo tilmaamay waxay inta badan hantidooda geliyaan waxyaabo dhaqaale u soo xareynayo wax walba oo ay sameynayaan waa maalgashi wax sii badanayo oo hantidooda sida boorsada inay lacag ka sameeyaan ama forex meelaha lacagaha la gashto ama saami ku yeeshaan shirkado cusub ama kuwa hore u jiray si ay lacag uga helaan ama ganacsi cusub inay abuuraan ayay ku dadaalaan dadka taajiriinta ah tusaale ahaan haddii uu qaato $2,000 waxa uu isticmaalayaa bishii $1,500 waxa u soo haray $500 wuxuu gelinayaa wax uu lacag ka heli doono sidaa daraaddeed systemkaas mar walba lacagtu shaqaynayso waxaa kordhaya kabitaalka ama lafihii markii hore la maalgeliyey ayaa waxay noqonaysaa mid sii buurata oo kordha halka kuwa faqiiriinta ah aysan waxba ku biirayn ama in yar aan idhaahno dhab ahaantii haddii aan si kale u dhigno muhiimadda ugu weyn maahan mishaharka aad qaadato waxaad dhici kartaa inaad qaadato mishahar aad u badan tusaale ahaan $5,000 inaad bishiiba ku soo gasho islamarkaana aad ku qarash garayso waxyaabo aan macno lahayn sidaana ay ku dhammaato taa beddelkeeda waxaa dhici karta inaad qaadato $1,500 laakiin haddii ay kuu soo harto $500 aad u isticmaasho waxyaabo lacag ku soo gelinaya ama aad ka shaqaysiiso si tartiib ahna ilaa aad ka gaarto madax bannaani dhaqaale oo aadan u baahnayn
inaad shaqayso. kelmaddaasiitina Kiyosaki aad buu ugu soo celceliyaa inaad noqoto qof ka madax bannaan inaad shaqayso oo aad hesho hanti kugu filan ilaa inta noloshaada ka harsan. waxaan ku siin doonaa tusaalooyin dhowr ah oo aad lacagtaada kaga shaqaysiin karto. waxaa ka mid ah guryaha, inaad guri iibsato oo aad markaasiti ijaar geliso, isla markaana aad filato ijaarkaasiti bil walbo ay kaa soo galaan lacag. boorsada ayaad gelin kartaa, meelaha suuqyada waxaaba lagu kala gato ayaad waxaad heli kartaa inaad lacag ku darsato, lacagtaadana ay kuu shaqayso. waxaa sidaa oo kale aad ka qayb qaadan kartaa waxyaabaha suuqa lacagta oo kale ee xalaasha ah ee lacagaha lagu kala gato sida forex oo kale ayaad lacagtaada u isticmaali kartaa oo aad filan karto inay lacagtaadi ay korodho isla markaasna aad ku gaarto isku filnaansho. waxaa kale oo jira waxyaabo aad adiga handhistay sida buug aad qortay, ganacsi aad furtay iyo uu sameeyey qof kale inaad wax ku darsato xawaaladaha oo kale iyo shirkadaha wax lacaga oo kuu shaqeeyo isla markaasna aad ka faa'iido. dadka qaar maskaxdooda waxay aaminsan yihiin inaad boorsada lacag ku darsato ama ganacsi aad geliso. dhanka guryaha waxaa jiro khatar inaad khasaartid, laakiin isla dadkaasi kama fikirin inay iibsadaan teleefon cusub oo iPhone-kii ugu dambeeya ama dhala labaad, kuwaas oo sanad ama laba kadib wax qiimo aan lahayn. ugu dambayntii, haddii aan soo koobno sida aad u noqon karto taajir, waxaad u baahan tahay inaad dhaqaalahaaga si caqli ah u maarayso, sidoo kale ka barato dadkii kaa horeeyey iyagu ku guulaystay inay ka mir dhaliyaan himilooyinkooda isla markaana noqday taajiriin. baro inaad qarashkaaga macno darada ah aad yarayso, xoogga inaad saarto ka shaqaysiiso dhaqaalahaaga, kuwa aan waxba kuu soo biirinayna iska yarayso. taajiriinta waxay lacagta ka abuuraan inay akhristaan, inay koorsooyin raacdaan, inay aqoontooda sare u qaadaan ayay waxay ku gaaraan taajirnimo. kuma gaaraan inay lacag imshaar un shaqeeyaan, saacadahana badsadaan si ay dhaqaalo u soo gasho. inta aadan maalgashi samaynin, baro dhaqaalaha sida loo maareeyo, la tasho dad aqoon u leh. fikradahaaga iyo hal abuurkaagana waa ku saamixi doonaa inaad hanti badan samayso. adduunka dadka guulaystay maaha kuwa ugu caqliga badan ee waa keliya kuwa geesinimo ku jirto ee hal abuurka ah. intaas ayaan kusoo koobayaa buugga la yidhaahdo Rich Father Poor Father ee Robert Kiyosaki. haddii aad ka heshay videogeegan la wadaag asxaabtaada. intaas ayaan kusoo koobayaa. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.